waan dhowrayaa oo waan dhisayaa war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan haye Soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wuu dhimanayaa Soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wuu dhimanayaa war wuu dhimanayaa erayga Soomaali waxa uu ka yimid ama uu dhabarka ku hayaa eraya dhalo rogmay oo kala Soomaal Dumaal iyo Soomaali dhulka Soomaalida waxa markii hore loo aqoon jiray dhulkii filka weynaa dhulkii udgoonaa iyo dhulkii eebayaash culimada ku xeeldheer ablaableynta tafiirta aadanaha guud ahaan way isu khilaafsan yihiin halka ay ka soo jeedaan dadka Soomaalida la dhaho waxaana la sheegaa inay ka soo tafiirmeen qowmiyadka Kushitiga la isku dhaho luqadda Soomaaliga waxa lagu tiriyaa luqadaha Kushitiga ee looga hadlo wadamada kala Masar Kenya Tanzania Eritrea iyo waliba Ethiopia waana luqadda ugu badan ee looga hadlo Geeska Afrika aqoonyahan ku xeeldheera cilmiga bulshooyinka oo lagu magacaabi jiray Dr. Atifo uu cadeeyay in afka Maymaygu uu yahay mid asal ah oo ayna ka buuxin erayo Carabi ama English Soomaalida boqolkiiba 60 waa kuwa Shaaficiya oo wan madhabka Shaaficiga waxayna diintu soo gaartay intay gaarin magaalada Madiinatul Munawwara mana jirto mana laga soo heeray taariikhda qof Soomaaliyeed oo saaf lagu islaamiyay waxay tayna daliil u tahay qiyamka iyo garaadka ay xambaarsanayeen awoowayaasheen Carabi iyo Afrikaan gabadhii ugu horeysay ee diyaarad duulisa waa duuliye sare Asli Xasan Cabaade sidoo kale magaalada Taleex waa goobtii ugu horeysay ee ku taala Afrika isla markaana gumaystuhu u adeegsado diyaarado dagaal waxaana la xusaa in qalcadda ama sarta daawad iyo Taleex lagu dhisay caanigeel taasoo keentay inuu dhismuhu joogo Soomaalida waxaa taariikhda ugu qoran inay ku jirtay dagaalkii ugu dheeraa oo socday muddo 700 oo sano ayadoo u gurguuranaysa marna u geeda fuulaysay boqortooyadii Xabashida ganacsatada Soomaalida waxay ahaayeen kuwa la qiimeeyo oo la qadariyo la maamuuso loona sano markii ay tagaan dhulka Carbeed waxaana loo aqoonsanaa inay yihiin kuwa ganacsiga u baahilay isla markaana u saaxiiba daloodana waxayna marfad wadeen culimada Soomaaliya in xoolo sadaqa la gaarsiiyo dalka haatan Iiraada Sacuudiga wabiga Shabeelle wuxuu Soomaaliya ka soo galaa gobolka Hiiraan isagoo ku dhamaada meesha la yiraahdo Daytuwak wabiga Jubban wuxuu ka soo galaa gobolka Gedo isagoo ku dhamaada goobta dalxiiska ku wacan ee goob weyn dhul baraha ama Equatorka waa xariiqad toosan ee adduunka u kala qaybiyo koonfur iyo waqooyi wuxuuna Soomaaliya ka maraa magaalo la yiraahdo Barsanguni ama Sanguni oo dhacda gobolka Jubbada Hoose I'm not just a pretty girl.